madaxweynuhu nin walaalkiisa u fiyo baa leeyahay haduu madaxweynuhu naga waashay dadka reer galmudug wadan ma waalan maalinta anu gaariga saarana waa fiican yahay markaan saarana waa xun yahay Soomaalina ku soo baranay galmudugna u sidaranta maan xoogan u badalna xaq ahlu sunna xalkeedana anigayda kaas wuxuu leeyahay xumaan qori daba qoladiis wada oo galmudug lagu gubayaba waa ku waaribay waa kuwaas saxan u leeyahay kuwaas saxan kii qori daba sidaba projecti villa Soomaaliya abaabulatay oo ay rabto inay doorashooyinka ku carqaladayso oo ciidamada meesha la geeyana marka lagu laayo ahlu sunna ma ahana shacabka marka lagu laayo xanoqonin maalintan kursiga aan rajo ka qabo oo anigu aan in la ii xoogo ama anigu aan ku fadhiyana carada galmudug u fiican maalintan aniga rajo aan lay dooranayn ama aan arko inaan meesha aan kursi aan ku fadhina ama aan cid kale soo raratana galmudugan boqol ceebood isla u yeelaya han noqon aniga kursiga gurceel galaan garan waayo waa jannadii al-shabaab ay naga raadinayeen oo kale taas siyaasi kuma tihid dadkuna ku arag galmudugna waxba dhibi kartid adeer eedahaadii hore waxba ha ku darsan horey baa eedo badan ku saarnaayeen dadka meediyaha mariyad ali shakhsiyaadka tilmaama ma ahi dadka ceebaha shakhsiga sheegana ma ahi inaan ku kaftamo barnaamijka waa suurtagal laakiin Soomaali uma soo mariya maalki mar raba inaan hoos ugu dago waxa qaylinaya kuwa tartami waayay oo tartan soo bandhigno tartami waayay ninkii dhuumanayo dhabarkiisu muuqdo kalatiin nooca aad tihiin hadda waa laydin bartay dadka sii baranina waa mashruuc kale ayaa galay mashruuc doorasho ayaa galay weerarka gurceel lagu qaaday waxa qaylinaya kuwa yiri anigu qabiil ima rabee aad kursi inta yahtaysi ma ya qabiilka ku soo doono hatta kursi lama dooraya qabiilka u dooro reerkaagi waxa qaylinaya mid og inaan qabiilkiisa reerkiisa dooranay oo banaanka u samreen doorashadana dan hadda ka leedahay banaanka iskeen anu galmudug malihi ana dad la dirsan tahay hadaadna maarta nacab tahay waa ku soo dhaweynina adigu doorasho umow dadkaagana waxa aad sameynayso wax ay bari ku wax xasuustaan oo doorasho aan ka tarnoqo la imow